ma daawatay orodyahanada markay ordayaan isma dhiibaan ilaa ay ka gaarayaan bardhamaadka xariiqda ama xariga loogu talagalay, waayo waxa u muuqda hiigsigoodii. kusoo dhawo barnaamijka baraarugii muuqbaahiyaha telefishinka Ariel, waxaan idila socodsiin doonaa anigoo Cabdishakuur Maxamed Xarbiye. hiigsi yeelo hiigsi. hiigsigu wuxuu kaxeeyaa qofka, wuxuu u sawiraa bartilmaameedyadiisa, wuxuu ilowsiyaa dareenada xanuunka badan ee ku geedaaman, wuxuuna u turunturaysiiyaa xagga hore qofka. ma jiro qof guulaystay adduunkan oo aan lahayn hiigsi. hiigsigu innaga ayuu inaga bilowdaa. bal dhegayso wadnahaaga oo isweydii, waa maxay hiigsigaagu? maxaad doonaysaa inaad noqoto? halkeed doonaysaa inaad gaadho? waa maxay hadafkaagu? waa maxay isbedelada aad adduunkan doonaysa inaad ka samayso? waa nooc riyooyinka aad ku riyoonayso. haddii aad hiigsi leedahay ma joogsanaysid weligaa, waxnana kuma joojinayaan, waayo hiigsiga ayaa wax kastaba kaa qabanaya. hiigsigu waa sida barlabta oo kale, wuxuu soo jiidanayaa bartilmaameedyadaada, wuxuu soo jiidanayaa hadafyadaada, wuxuu soo jiidanayaa riyooyinkaaga aad ku riyoonayso. waa run markaad hadafkaaga ka daba cararayso, markaad daba socoto riyooyinkaaga iyo waxyaabaha aad ku riyoonayso, waxaa kaa hor imanaya askari jiife, waxaa kaa hor imanaya wadooyin xidhan oo aan horaantaa la marin. waxaad arkaysaa guuldarooyin isdaba joog ah oo aad mararka qaarkood is odhanayso talow ma adiga lagugu talagalay waxan. waxay isku dayayaan waxyaabahaas oo dhan in adiga ku joojiyaan. waxa kaliya ku daba marin karaa waa hiigsigaaga. waxa awoodda ku siinaya si aad uga hor timaado waa hiigsigaaga. yeelo hiigsi aad kaga hor timaado dhammaan waxaas oo dhan. ma daawatay orodyahanada markay ordayaan isma dhiibaan ilaa ay ka gaarayaan bardhamaadka xariiqda ama xariga loogu talagalay, waayo waxa u muuqda hiigsigoodii. marka dadka guulaystay isma dhiibaan weligood, waayo waxay leeyihiin hiigsi. hiigsigu markaa weligaa wuxuu kaa dhigayaa inaan isdhiibin. waxaan doonayaa inaan sheeko gaaban kusoo gabagabeeyo oo ku saabsan hiigsiga. magaciisu waa Jack Ma. wuxuu u dhashay waddanka Shiinaha, waana mulkiilaha shirkadda Alibaba Group. waana mid ka mid ah dadka ugu hantida badan adduunka, waana ninka ugu qanisan waddanka Shiinaha aad aragteen inta qof ee ku nool. wuxuu ka dhashay reer faqiir ah, wuxuu tiro dhowr jeerba ku dhacay iskuulkiisii dugsiga hoose, sidoo kale dugsigii sare, sidoo kalena jaamacaddii uu ku dhacay. markii dambe uu dhameeyey, adigu wuxuu bilaabay shaqo inuu xareysto. 30 shaqo ayuu xareystay, mid kastaaba way diiday. kaaga darana waxaa mid walba ay ugu jawaabaysa jawaab la mid tii hore oo ah adigu kuma wacnid. waa 30 shaqo oo mid walba ay ku tiri adigu kuma wacnid. waad garan kartaa adiga haddii 3 shaqo aad xareystay mid walba jawaab isku mid ay ku siiso, amaba adiga shakhsi ahaan wax kaa sheegto, inaad adigu dib su'aal isku gelinayso oo aad iskaba shakiyeysaba. haddana waxay meel u xareysteen shaqo 24 qof. 23 qof ee kale waa la qaatay, asagu waxaa kaliya ee la diiday. asagay inay wax isku yihiin ayaa shaqo hodheela xareystay. inankii wax isku ahayna waa la qaatay, asagana waa la diiday. boolis ayuu sii qor, waxa la adigu kuma soo baxaysid. waxay ahayd runtii waxyaabo lala yaabo waxaasoo dhan. haddana kamuu rajo dhigin noloshii, ismuu dhiibin, ma oran anigu kuma wacnin noloshan, mihii kii loogu talagalay. hiigsigiisa ayaa u muuqday maanta waa mid ka mid ah dadka ugu hantida badan adduunka. waa dhiirigeliye nololeed, mar walba noloshiisa ayuu ka sheekeeyaa. laakiin haddaad dhegaysato wax badan ayaa kaaga kordhaya. yeelo hiigsi, waad gaaraysaa rajada iyo mustaqbalka aad doonayso. intaan ku kulmi doono barnaamijkeena barnaamij la mid ah, waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.